BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. وهجاج مدحوينها الدلكا يوكرين فلاديمير سيلينسكي ayaa waxa uu ugu baaqay oo ku booriyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu booqdo dalka Ukraine oo indhihiisa ku soo arko burburka ka dhashay duulaanka dalka Ruushka uu wadankaasi ku qaaday. Hadalka Zelensky oo CBS laga baahiyay ayaa waxa uu yimi saacada kadib markii gantaalo balastikada ah ee Ruushku ay dileen 4 qof oo wadankaasi u dhashay. Tirada dhimashada ayaa haddaba waxa ay sheegeen in ay sii kordhi karto iyadoo dadka dhaawacmayna ay ku sugnaayeen wadooyinka gawaaridooda dhexdooda iyo weliba gaadiidka dadweynaha halka qaar kalena ay guryahooda ku sugnaayeen. Haddaba Cabdiraxmaan Bidhaan ayaa waxa uu arrimahaasi ka waraystay saxafi dalkaasi hore ugu soo noolaa islamarkaana khabiir ah oo ka sheekeeya arrimahaasi oo la yidhaahdo Sabuub Carab. aad baad u mahadsantahay walaal Bidhaan. duqeyn ayuu ruushku ka geystay magaalada Sumy oo iyadu ku taala Ukraine. magaalada runtii badankooda oo magaalooyinka maaragtay la isku hor fadhiya dagaalada culus ka dhaceen, laakiin maanta unbay ahayd markii dhibaato badan ama waxyeelo badan oo lagu dhintay qaar badanna ay ku dhaawacmeen ay ka dhacday. waxyaabaha ka dhacay waxaa ka mid ah 2 gantaal oo waaweyn ayaa lala beegsaday oo kuwa plastica ah ee magaalada Ukraine. mid ka mid waxa uu ku dhacay dhismaha jaamacadda ku taala magaalada Sumy. labaadna walaal wuxuu ku dhacay meel wada ah oo welibana dadku aadka ay ugu fara badan yihiin, iyadoo la filayay ama maaragtay dad isugu soo baxay xaflad inay dhigtaan ayaa iyagu waxyeelo badan ka soo gaadhay. dadkaasi dhaawaca fara badan baa ka soo gaadhay, 100 iyo in ka badan ayaa dhaawaca aad u fara badan ay ka soo gaadhay. waxaana ku jira dad caruura, laakiin arrinta aadka ama dhacdada aadka loo hadalhayo waxaa ka mid a gabadh yar oo 2025 dhalatay oo iyadu ku waxyeelowday qaraxaasi oo runtii madaxweynaha Ukraine uu qudhiiso aad u soo qaadanayay oo uu lahaa dad caruura ayaa halkaasi lagu waxyeeleeyay. kastoo caruur fara badan ay ku jiraan, laakiin gabadha yar baa aad loo hadalhayaa. waan gartay haddaynu hore uga soconno dhankii kale ee aagagii dagaalka Ukraine, Sabuub Carab maxaa ka soconaya in aagagaasi ee xaggii dagaalka? weli walaalo kolley inkastoo lagu jiro hawlihii maaragtay in xabad joojin maaragtay isku meel gaadha oo aan maaragtay waxyaabaha maaragtay cusbitaalada iyo meelaha dhakhaatiirta iyo wadooyinka aan maaragtay xabad joojin laga sameeyey, haddana kolley dagaalo waaweyn oo fara badan lagama soo sheegayo goobaha kale. laakiin hadda waqti xaadirkan maaragtay qaraxaasi 2 muxuu ahaa gantaale lala beegsaday magaalada Sumy ayaa ugu wada waaweyn. taasaa maaragtay caalamka maanta haysata, inkastoo madaxweynaha Ukraine uu ku tilmaamay maaragtay muddooyinka u dambeeyey meelo goobo maaragtay magaalada Dnipro kale, magaalada Kiev oo kale ay ka jireen tuurtuur uu ruushku kusoo geysanaya gantaalada qaar. laakiin weli hadda waqti xaadirkan magaalooyinka kale waa maaragtay xaaladoodu waa degan tahay. waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaynu arkaynay toddobaadkan in madaxweynaha Ruushanka Putin iyo ergeyga gaarka Mareykanka Witkoff ay kulmeen. qaaradda Yurub waxaa la soo geliyay warar ay qoratay saxaafaddu la leeyahay gobolladii Ruushku ka qabsaday Ukraine ama uu sheeganayo ayay Mareykanku rabaan in qaar looga hadho ama intoodii badnayd, taasi oo wada hadalka dhibaato ku keenaysa. markaad eegto saxaafadda iyo siyaasadda Ukraine waad la socotaa, maxaa falcelintu maxay tahay xagga wada hadallada nabadda markaad eegto dalka Ukraine? walaal wada hadalladii nabad weli way socdaan. waawaantii iyo wada hadalkii dhinaca nabadda ee miiska maaragtay diblomaasiyadda weli maaragtay way socdaan. runtii sidaas sheegaysana kulankaasi waa wax jira. warbaahinta qaar ba waxay qorayaan oo welibana kuwa Ukraine ka soo baxaa in Ukraine loogu talagalay in la qaybsado 2 qaybood loo qaybiyo, qaybna ay qaadato reer galbeedka iyo Mareykanku, qaybna ay qaataan Ruushka. taasna maaragtay xoogaa ay u muuqato kuwa aan suurtagal ahayn. runtii Ruushku wuu ku waawaantamaya ama maaragtay wuxuu doonayaa inuu qayb ka mida Ukraine uu gacanta ku dhigo. waawaantiisa siyaasadeed ee diblomaasiyadda iyo wada hadalka iyo nabadaba way ku jirtaa, waana qaybo ugu waaweyn. magaalada Sumy ee qaraxa weyn ka dhacay baa ka mid ah magaalooyinka doonaya inuu maaragtay qaato. waxaa ka mid ah gobolada Donbaska loo yaqaano ee Dnipro ee muxuu ahaa bariga dhaca Ukraine oo runtii macdan iyo maaragtay waxyaabo badan ay ka mid yihiin. dhinaca reer galbeedku iyagu qudhooda waxay doonayaan inay ka riixaan oo ay maaragtay hawsha maaragtay aanay maaragtay u saamixin in Ruushku qaybahaasi uu qaato oo macdantaas iyo maaragtay waxyaabaha muhiimka ah ay qayb ka noqdaan tartankooda.
laakiin weli maaragtay wax rasmiya oo weli kasoo baxay oo xaqiiqo oo aynu sheegi karno in hoosta ka xariiqarno weli ma jiro. wax laisla afkartay oo heshiisa dhaba oo maaragta laisla afkartay oo maaragtay lasoo wada saaray oo dhinacyadu ay isla afkarteenna weli ma jirto, laakiin waantaa iyo nabaddaasi way socotaa. sabuub carab falanqeeye iyo saxafi hore ugu noolaa dalka Ukraine oo arrimaha dalkaasi uga warramayay Cabdiraxmaan Bidhaan ayuu kaasi ahaa.